maanta ay taariikhdu tahay 10 Maarso ee 2024 waxaa kulan weynaha isugu yimid beelaha Jareerweyne wakiiladooda waxaana looga dooday qodobada soo socda. kow xoojinta iyo mideynta beelaha Jareerweyne. labo raadinta xuquuqda beelaha Jareerweyne iyo matalaad dhameystiran. saddex dhaliisha beesha Jareerweyne ay ka qabaan hay'adaha deeqaha bixiya. afar taageerida go'aankii labada gole ee baarlamaanka ku diideen qaadashada badeena. qodobadaas ayaa lagu falanqeeyay sidaas laagligeed haddaba anigoo ku hadlaya magaca aqoon-yahanada dhalinyarada culumada siyaasiyiinta dhaqanka haweenka beelaha Jareerweyne ayaa waxaa halkan idinkugu aqrinaya war murtiyeedka ka soo baxay shirweynaha wada tashiga ee beelaha Jareerweyne si loo sugo jiritaanka loona adkeeyo sharaftii xuquuqdii iyo karaamadii ay ku mideysnaayeen walaalaha Soomaaliyeed ayaa waxaa laga maarmaan noqotay in la qabto shirweynahan wada tashiga beelaha Jareerweyne waxay mar kasta xuquuqdooda ku raadiyaan hab nabadeed ayagoo ka fogaanaya dagaal hanjabaad. shirweynaha wuxuu soo saaray war murtiyeedkan oo ku wajahan dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha waana sida soo socota. kow beelaha Jareerweyne oo matala shirweynahan ku kulansan waxay matalaan bulshadooda nabadda jecel oo dega gobolada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe, Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe, Baay, Bakool, Gedo, Hiiraan iyo gobolka Banaadir kuwaasoo ah qaar ka mid ah dowlad goboleedka ka tirsan gobolka hadda ka dhisan ama hadda jira. labo haddaba beelaha Jareerweyne mabda'ooda waxay ku saleysan tahay nabad midnimo cadaalad iyo dhowrista xuquuqda aadamaha. shirweynuhu wuxuu isku raacay in midnimada beelaha Jareerweyne ay muqaddas tahay una midoobaan dantooda iyo sidii ay wax ula qaybsan lahaayeen walaalahooda Soomaaliyeed. saddex waxaad la socotaan in beelaha Jareerweyne ay door muhiim ah ka qaataan difaaca iyo sugidda amniga dalka. haddaba dowladdu u hogaamiyo madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u diraynaa baaq oo ah inay wax ka bedelaan qaabka ay ula dhaqmayaan beelaha Jareerweyne dowladnimada jecel iyo nabadgelyada jecel dhowrana xuquuqda ay leeyihiin. sidoo kale dowladdu inay buuxiso jegooyinka xaq ahaan uga maqan beelaha Jareerweyne. afar shirweynuhu waxa uu u muuqday inay dhaliil weyn ka jirto dhinaca deeq-bixiyayaasha sida hay'adaha wadaniga ee loo yaqaano NGOs oo national NGOs, hay'adaha caalamiga international NGOs iyo hay'adaha qaramada midoobay ee loo yaqaano UN, taasoo ay ugu weyn tahay in deegaanada ay ka soo jeedaan beelaha Jareerweyne si siman loo gaarsiinin deeqaha iyo gargaarka bini'aadanimo ee loogu talagalay kuwaas oo ay u mariyaan hay'adaha hogaamiya beelaha huweysan. shan in beelaha Jareerweyne laga qaybgeliyo fursadaha lagu abuurayo mashaariicda
maalgelineed investment projects oo afka qalaad loogu yaqaano laguna dhiirigelinayo wax soo saarka dalka. lix beelaha jareerweyne waa inay helaan fursadaha kala duwan ee lagu bixinayo deeqaha waxbarasho ee dalka iyo dibaddiisaba. toddoba beelaha jareerweyne waxaa sidoo kale ku dhaliilayaan qaabka dowladda Soomaaliyeed aysan ku dhowreynin heshiiska awood qaybsiga jagooyinka ay magacaabayso ayadoo qaabka awood qaybsiga markiisa horeba ahaa mid aan xaq ku salaysnayn. haddana beelaha jareerweyne waxay mudnaanta siiyeen geedi socodka nabadda ee dalka maadaama ay yihiin beelo nabadeed. sideed beelaha jareerweyne waxay shirweynaha maanta si buuxda ku taageerayaan go'aankii labada gole ee lagu badbaadinayo baddeena Soomaaliyeed taasoo ay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan uga dhiidhiyeen damacii Ethiopia ay ku doonaysay baddeena. ugu dambeyntiina uu saxiixay ama qalinka ku duugay mudane madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. ugu dambeyn shirweynuhu wuxuu u mahad celinayaa maamulka Hirshabeelle oo mar walba ku taagan dhowridda awood qaybsiga bulshada beelaha jareerweyne ee bannaankana soo dhiga xubintii beelaha jareerweyne ama xubnihii beelaha jareerweyne ay ku lahaayeen aqalka sare. waxaan rajaynaynaa in maamulada kale ay ku daydaan si loo helo wada noolaansho salka ku haya cadaalad iyo sinaan. waa mahadsantihiin. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhamays xawaare sare iyo qiimo jaban. ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab koodh nambarka xidig 1 eber 1 4 gees.